بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وأحيا سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى waxaan ka hadlaynaa siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam. marka dagaalkii la odhan jiray xunayn ayaan ku jiray. aljeysh alislaami yubaaqitu arrumaata almuhaajimiin. waxaa dhacday marka ciidankii nabiga caleyhi salaatu wasalaam markay baxeen ee meesha xunayn xaggeeda u baxeen, waxaa usii galay nimankii la odhan jiray hawaasin baa waxay usii galeen tog halkaa ku yiilay. kolkaasay yay si fiican usoo hujuumeen muslimiinta. dagaal adag bay halkaa markaa muslimiintu ka galeen oo markii hore lagu jebiyey, muslimiinta la jebiyey, kadibna way rogaal celiyeenoo dee gaaladii baa la jebiyey. taas way darsiga aan bilaabaynaa. intaha aljeyshu alislaami ilaa xunayn leylata thulathaa licashrin khalowna min shuwaal. jeyskii islaamiga wuxuu tegay meesha la yidhaha xunayn habeen talaado ah oo 10 ay ka tagtay bisha shuwaal. wa kaana wuxuu ahaa maalik ibnu coof ninka la yidhaha qad sabaqahum. ninkii maalik ibnu coof la odhan jiray oo madaxda kolka hawaasin u ahaabaa kasoo horreeyey. fa adqala jeyshahu ciidankiisu wuxuu soo geliyey bileyli habeennimo fii daalika alwaadi, waadiga xunaynka toga xunayn buu sii dhigay ciidankiisa. wa faraqa kamaanahu fi duruqi walmadaakhili, wuxuu ciidankiisa ku kala bixiyey wadooyinka iyo meelaha maaragtay godadka ah oo dhan buu siiyo, washicaab nacam, walikhbaa meelaha qarsoon, walmadaayiqi meelaha cidhiidhiga ah. wa asdara ilayhim amrahu, amar buu siiyey ba an yurashiqu lmuslimiina awala maa talacuu. muslimiintu markaad aragtaanba wuxuu yidhi ku bilaaba oo laaya buu yidhi marka u horreysaba. uma yashuddu shaddata rajulin waaxid, wuxuu yidhi hujuum adag ku qaada hal mar. wa bisaxari waqti aroora caba-a rasuulu sala allahu caleyhi wasalam jeyshahu, nabiguna wuxuu ciidankiisa diyaariyey waqti aroora. wa caqada alalwiyata, calamadiina waa guntay, waraayaat iyo calamadii. wa faraqahaa cala annaasi, dadkiiba u qeybiyey. wa fi cimaayati subxi, aroor hore oo madow, istaqbala almuslimuuna waadi xunayn. halkaasay aroor hore tageen muslimiintu ay qaabileen toga xunayn la yidhaaho, iyo aroor hore soo qaabileen. wa sharacuu yanxadiruuna fiihi, waxay bilaabeen inay togaa ay hareeraha ka soo galaan. wahum laa yadruuna, iyagoon ogeyn biwujuudi kamanaa'i alcaduwi fi madaayiqi lihada alwaadi, iyagoon ogeyn inuu cadowgu meesha ku jiro, cadowga kamaan dooska ahaa oo meesha raggaa tababaran, iyagoon ka warkahayn. fa baynamaa yanxatuuna, mar ay soo degayeen, id tumdira calayhim unnibaalu, leebabaa sida roobka oo kale lagaga dhigay. leebabkii baa sida roobka loogu soo ganay. waidaa kataa'ibu lcaduwi, waxa weeye ciidankii ama qeybihii qad shadad calayhim shiddata rajulin waaxid, hal mar baa lasoo hujuumay. fanshamara almuslimuuna raajiciina, muslimiintii baa dib u cararay markaa. laa yalwi axadun calaa axad, midba midka kale isagoon daynba waa la cararay. wa kaanat haziimatan munakara, waxay ahayd jab aada u xun buu ahaa. xataa qaala abu sufyaan ibnu xabri baa wuxuu yidhi, wa huwa xadiidu cahdin bilislaam, isagoo islaamka ku cusub, laa tantahi haziimatuhum duuna albaxri. wallaahi jabistan ay jabeen buu yidhi badda unbaa soo celin karta, albaxru alaxmar unbaa soo celin karta. wa sarakha waxaa qayriyey jibilatu aw kaldatu ibnujunayd, ninka la yidhaha baa qayriyey. alaa hooyay buu yidhi, badala asixru alyowm, maanta sixir waa jabay buu yidhi. waxa weeyaan maanta dagaalka rag adag unbaa liibaanaya buu yidhi. wanxaaza rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam jihat alyaman, nabigu jihat alyamiin, dhanka midigta ayuu nabigu u durkay.
wahuwa isagoo yaquulu wuxuu leeyahay halumuu ilaya ayuha annaas kaalaya xaggayga war kaalaya ii imaada ana rasuulullah rasuulka ilaahay baa ahay ana maxamed ibnu cabdullaahi baan ahay walam yabqa macahu isagana lama joogin markaa fii mowqifihi halkaa ilaa cadadun qaliilun min almuhaajiriina wa ahli beytihi dad yaroo muhaajiriintii hore ah oo asxaabtii waaweyneeda iyo dad ahlu beytkiisa ah unbaa ku soo hadhay waa laga cararay waxiina idin markaa daharad waxaa soo baxday shujaacatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga geesinimadiisa allatii laa nadiira lahaa oo wax loo dhigaba la waayey geesinimada nabiga oo wax u dhigmaba uusan jirin faqad dafiqa wuxuu bilagallaabay nabigu yurakisu baqlatahu inuu joojiyey maaragtay baqladiisii faraskiisii uu joojiyey qibala alcaduwi xagga cadowga iyuu u sii daayeyba wahuwa yaquulu isagoo leh ana nabiyu nabi baan ahay laa kadib been ma jirto ana ibnu cabdilmutalib wiilkiisi baan ahay bayda wuxuu yidhi laakiin abaa sufyaan ninka la yidhi ibnu xaaris kaana aakhidan bilijaabi baqlatihi abuu sufyaan baa yaa wuxuu hayey yani kaynaanku u hayey ama afkeed xakamuhu u hayey walcabaasu birikaabiha cabaasna waa la fuushanaa nabiga yani waa labadoodaasa yakufuunahaa way joojinayeen an laa tusrica inuuna cadowga nabigu sii dhexgelin bay ka joojinayeen uma nazla rasuulullahi sala allah nabigu u degay fastansara rabbahu qaa'ilan ilaahay buu weydiistay nasri allaahuma anzil nasraka buu yidhi ilaahu soo deji nasrigaaga ilaahow nasrigaaga soo deji rujuucu lmuslimiina wa ixtidaamu lmacraka kolkuu nabigu halkaa joogay muslimiintii marka yaa soo noqday wa amara rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuu amray nabigu camahu adeerkii cabaas wa kaana jahwariye sawti nin wuxuu ahaa jahiira sawti nin cod dheer buu ahaa an yunaadi saxaabata inuu u dhawaaqo qaala wuxuu yidhi alcabaas faqultu waxaan idhi biaclaa sawtii sawdkayga ka ugu saraa ayna asxaabu samura qoladii baycadii aaway samurada macnaha baycada gashay baycatu ridwaan qaala wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartee la annaka ana cadfatahum xiina samicuu sawtii cadfata albaqari calaa awlaadiha waxaad moodaa naxariista ay markaas soo laabteen dib u soo laabteen markiiba inay neef lo ah oo ilmaheedii kusoo noqotay oo kale faqaaluu waxay dheheen labayka yaa labayk haye bay dheheen waan ku maqalay wayadhabu rajulu liyuthnii baciirahu ninkii wuu soo celinayay faraskiisa marka nin waliba falaa yaqdiru calayhi faya'khudu dircahu faraskiisa wuxuu soo qaadanayay diriciisa fayaqdifuhaa fii cunuqihi luquntiisa ku tuurayey waya'khudu sayfahu seeftiisu soo qaatay wa tursahu iyo gaashaankiisa wayaqtaximu can baciirihi wuu ka degayey faraska wayukhallii sabiilahu iskaga tegayey fayaummu sawtka u soo qastayey xataa ida ijtamaca ilayhi minhum 100 markay 100 u yimideen nabiga istaqbala annaasu dadka way isqaabileen waqtatalo way dagaalameen markaasaa dagaal toosa loo bilaabay wasarafat iddacwatu ila alansaar ansaar baa iyagana looga yeedhay yaa macshar alansaar baa layidhi ansaartii nabiga u kaalmaysayo yaa macshar alansaar baa layidhi uma qasurat iddacwatu dacwadii waxaa lagu koobay fii bani alxaaris min alkhasraj yaa bani khaaris ibnu xajiradu weyna xaggee tagteen baa layidhi kaalaya watalaaxaqad kataa'ib almuslimiina baa isa soo gaadhay waaxidatan tilwa lukhraa ciidankii baa isa soo wada gaadhay kamaa kaanuu tarakuu almowqica kolkii ay ka tageen iyagoo wada ah sidii oo kale u wada yimideen watajaalada alfariiqaani dagaalkii baa si fiican u bilowday mujaaladatan shadiidatan si adag baa loo dagaalamay wa nadara rasuulullahi rasuulkii baa wuxuu fiiriyey ilaa saaxati alqitaal dagaalkii waqad istaxsara hawshuna ay kululaatay markaa waxtadama yani ishtacalad weeye oo waxa weeye way hurtay dagaalkii baa huray faqaala wuxuu yidhi alaana hadda xamiya alwadiisu xamiya waxaa kululaaday alwadiisu dagaalka baa kululaaday marka alaana hadduu dagaalku kululaaday buu yidhi uma akhada rasuulullahi sala allah alay sl nabigu wuu qaaday qabdatan min turaabi alardi dhulkuu ka soo cantoobtay caro fa ramaa biha fii wujuuhi lcaduwi cadowgiibuu ku tuuray wa qaala wuxuu yihi shaahat ilwujuuh wejigiinu ha shaahdo yani wejigoodu u habaaray nabigu wuu habaaray calayhi salaatu wasalaam
famaa khalaqa allahu ma abuurin insaan ilaahay ma abuurin ya ilaa mala'a caynahu turaaban min tilka alqabdati taa uu nabigu ku tuuray baa indhaha ka wada gashay falam yazal xadduhum macnaha quwadoodiibaa kaliilan quwadoodii way daciifsay wa amruhum mudbiran way daba jeediyeen inkisaaru xaddati alcaduwi wa hazimatihi assaaxiqa marka quwadoodii way jabtay wamaa hiya ilaa saacatun qalaa'il saacado yar kadib bacda ramyi alqabdati markuu nabigu ku tuuray xataa inhazama alcaduwu cadowgii waa jabay haziimatan munkara si xun baa loo jabiyey wa qutila min thaqiif kaloo la yidhaha waxaa laga dilay waxdoom keligood naxwa 70 toddobaatan baa laga dilay waxaaza almuslimuuna maa kaana min alcaduwi min maalin wa silaaxin wadacn muslimiintu marka waxay soo qabsadeen alla wixii ay haysteen gaaladu xoolo ahaa iyo hub iyo dumar wa hada huwa tatawuru aladii ashaara ilayhi subxaanahu wa tacaala ashaara allahu ilayh marka tatawurkana qur-aanka ka hadlay fii qowlihi tacaala ilaahay uu yidhi wa yowma xunaynin maalinkii xunayn id waqti acjabadkum ay idin cajab gelisay kadratukum inaad badan tihiin ood u malaysan inaan laydinka qaalib noqon karin falam taqni cankum shay-an oyna waxba idiin qaban wadaaqad calaykum alardu dhulkiibaa idinku ciriiryamay bimaa raxbad iyadoo waasacba ahayd uma intaa kadib welilaytum waad jeediseen mudbiriina idinkoo daba jeedinaya waa markii hore la jebiyey way soo carareen uma anzala allahu sakiinatahu ilaahay xasiloontiisii buu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa yacni nasri baa la soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniinta wa anzala wuxuu soo dejiyey alla junuudan ciidan lam tarawhaa aydan arkayn wacadaba wuu cadaabay aladiina kafaruu ilaahay gaaladii wuu cadaabay wadaalika kaasina jazaau lkaafiriina kaafiriinta ilaahay ka gaaloobay abaalmarintooda weeyaan yuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala kolka dagaalkaasi waxa weeye dagaal adag buu ahaa oo hawaasin qolada la yidhaaho ay dagaal adag asxaabta kusoo qaadeen laakiin waa la jebiyey hubkoodii iyo wixii oo dhan waa lala wareegay xarakatu lmudaarada marka kadib baa aada loo eryaday marka walama nhazama alcaduwu cadowgii markuu jabay saarat daa'ifatun minhum ilaa daa'if qaar baa waxay u carareen daa'if wa daa'ifatun qeyb kalena ilaa nakhlata qeyb kalena nakhlay u carareen wa daa'ifatun qeyb kalena ilaa awdaas meesha awdaas la yidhaha bay qaarna u carareen fa arsala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaa awdaas wuxuu u diray daa'ifatan min almudaaridiina yaquduhum abu camar al ashcari ciidan uu abu camar al ashcari wato awdaas baa loo diray fatanaawasha alfariiqaani alqitaala qaliilan wax yar bay dagaalku socday uma inhajama jeyshu lmushrikiina gaaladii baa jabtay wa fii hadihi almunaawasha yar dagaalkaa yar qutila alqaa'id qaa'idkii baa la dilay abu camar al ashcari baa lagu dilay dagaalkaa yaree hore oo ku dhintay isagu wa daarad daa'ifatu alukhraa qolo kala eryatay oo min fursaani lmuslimiina yaa fuluulal mushrikiina gaalada intii kasoo hadhay aladiina salakuu nakhlata qoladii nakhlo galshayna qolo kala eryatay fa adrakat durayd ibnu samata yay halkaa ku heleen durayd ninka la yidhaha fa qatalahu waxaa dilay rabiicata ibnu rafiic yaa durayd halkaa ku dilay wa amaa mucdamu fuluuli lmushrikiina badankoodu qeybta dadkii cararay ee gaaladaha badankoodu aladiina laja-uu ilaa daa'if galay fatawajaha ilayhim rasuulu llahi sala allahu alay waslm binafsihi bacda an jamaca alghanaa'ima markuu khanaa'imta nabigu ururiyey kadib yuu nabigu halkaa usoo jahaystay oo warkaa xisaar buu ku qabtay nabigu caleyh isalaatu wasalaam sida aan arki doono insha allah marka meesha waxaad ka garanaysaa inay muslimiintu si adag ay u dagaalameen ilaahayna nasri uu siiyey ghaswatu xuneyn waana kaa qur-aanku ka sheekeeyey cibrooyin badan baa ku jira cibrooyinka lambar 1 waxaa ka mid a inaan muslimiintu aadan isku kadinin waan fara badnahay nasri laguma helo or ciidankana muslimiintu saan usoo sheegnay ugu badnaa 12,000 meelahaasi ahayeen haddana saasoo da way jabeen marka quruurku ma ficna taas waa mid talabaad waxaan ka faa'iidaysanay geesinimada nabiga caleyhi isalaatu wasalaam nasriga ilaahay xaggiisa ka yimid ta saddexaad oo ilaahay maaragtay macnaha malaa'ig inay meesha ka dagaalantay baa ka muuqata iyo waxaan ka faa'iidaysanaynaa sabarka muslimiintu ay lahaayeen iyo sida ilaahay subxana wa tacaala fatxi ugu furay biducaai nabiyi sala allahu caleyhi wasalam ilaahay nasriga muslimiintu siiyey yaa laga faa'iidaysanaya halkaa marka haddii diinta loo soo noqdo oo dadku diinta qabsadaan
saasay nasriga u helayaan mar kasta wallahu aclam sala allah calaa sayidina maxamed